العظيم إلهي هاي نوع أنفعه كلمات كاس القرآن كاي ولكن سيدا قرآن بدن إنه هو أقيل إلهي نوع أنفعه الله كلابات إن شاء الله وحنقصه دوينا يا نور ظاهر عبد الله ووعدي وبن إنه شديد دي الهيدا شيخ نور جامع ظاهر شيخ نور ظاهر عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حناد السلام يا كلانك مسؤولين الدولة المعودين شرفت ورباعين انتبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان لكم كوباد ما العلم ان إلهي سبحانه وتعالى مدرسنا قيمها بدل مليكم ميي مدرسان او مدر وحكرشو مدرسان او ay dadku in badan danaynayeen waxaan xusuusinaynaa ilaahay inaynu ka baqno marka koowaad cabsida ilaahay ayay khayr dhammaantii uu ku jiraa cabsida ilaahay oo la isxusuusiyaana male meel gooniya iyo masaajid iyo meel u qaasa ma jirto nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ittaqi illaah xaytu maa kunt meel walba ood joogto ilaahay kaga baq subxaana wa tacaala sidoo kale cabsida ilaahay ma laha zaman iyo muddo ay dhammaato ilaa iyo geerida waa inaynu ilaahay ka baqno subxaana wa tacaala wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin bilmunaasaba inaan ku dheeraado ma rabo culimmadu way fadhidaa waan ka cudur daaranayaa laakiin mar walbaba in waxbarashada la dhiirigeliyo oo dhammaan culimo iyo dadka qaybahooda kala duwanba ay ka shaqeeyaan ومطلب شرعي وإنه أمرنا هيوي جهلي وحيابها ومداها الرقادية يددك قير كود كرهيبا ووح نبي الله موسى عليه السلام وإلهي كما قال لي جهلي جاي أقوان درادو مركي بني إسرائيل الله صدري وحاندتك كبور هنا ينعي وحبرشاد اللي قفا يديستو كعلماء iskuullada gaarka loo leeyahay waxyaabaha naga khuseeya waxaa ka mid ah waxaa ku jirta maado shareecada islaamka qaybo ka mida lagu dhigo oo la yidhaha tarbiya alislaamiya oo ay ku jiraan axaadiistii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ay ku jiraan siiradii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo fiqigii islaamiga ah intaba waa wax bogaadin mudan oo weliba xataa dowladda wasiirada nagala jooga aan doonayna inay ilaa heer deegaan loo gudbiyo oo manhajka sidiisii caadiga ahaa lagu soo celiyo wax iskuullada dhanka dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahayba lagu dhigo maadada tarbiyada iyo luuqadda carabiga intaba maadada labaad oo waxa weeyaan aan dhiirigelinayno iskuulka sida gaarka waxa way xoogga u saari doono ama iskuullada dawladda aan ku jirin waa luuqadda carabiga luuqadda carabiga waa luuqaddii qur-aanku ku soo degay waa luuqaddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu dadka diinta ku gaadhsiiyey shakhsiga muslimkii kama oo manaan karo marka waan ugu hambaliyeynaynaa iskuullada gaarka loo leeyahay oo labada maado tarbiyada islaamiga ah iyo luuqadda carabiga waxa weeyaan tarkiiska iyo xoogga saara iyagoo sida kale maadooyinkii ay dadku markhaati ka yihiin iskuullada gaarka loo leeyahay wax badan deegaanka inay ku soo kordhiyeen oo tayo ah oo dadku waxa weeyaan ilaa jigjiga dhagax buur magaalooyinka dhan iskuullada ka furan ilaa dugsiyada sare iyo kuwa dhexaba tijaab ahaan dadku ay ogaadeen ardada ugu dhibcaha fiican yihiin iskuullada gaarka loo leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad baan kulanka u mahad celin wasiirada iyo dadka nagala soo qayb galay dhammaantood igana hambalyaan leenahay reer burqod haddaan nahayna waxa weeyaan inaan ka faa'iidaysano waxbarashadaas dadkii dhiirigeliyey ee wax weeyaa dhisay iyaguna way mahadsan yihiin jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu